toddoba dariiqo aad ku kobcin karto xasuusta maskaxdaada. Maskaxdu waxay ka mid tahay nimcada uu Ilaahay ugu deeqay bini'aadamka oo ku manaystay. Maskaxda kobaceeda fikirkeeda waxaa saameyn ku yeesha deegaanka uu qofka ku nool yahay, waayaha nolosha ku hareeraysan, caafimaadka qofka iyo arrimo kale oo badan. Maskaxdu waxay suureyn kartaa nolol aan jirin, waxay ka dhigi kartaa nolol dhici karta. Dadka qaarkood ayaa waxaa ku bata ilowshaha ama hilmaamka, waana hoos u dhaca awoodda xifdiga qofka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku eegi doonaa waxyaalaha maskaxda xasuusteeda kordhiya. Qodobka koowaad, jooji walbahaarka. Niyad-jabka, walbahaarka iyo dhammaan arrimaha nafta dhibo waxay waxyeello gaadhsiisaa qaybaha maskaxda u qaabilsan xasuusta. Haddaba marka arrimaha nafta dhibto oo soo maraan, waxaa dhibaato soo gaadha qaybaha xasuusta maskaxda. Hababka ugu fiican ee aad ku daweyn karto waxaa ka mid ah inaad cibaado iyo dikriga Allah badsato, inaad jimicsi samayso, ama in aad naftaada waqti nasasho ah siiso. Qodobka labaad, samee jimicsi. Jimicsigu maaha wax jidhka oo kaliya u wanaagsan, balse wuxuu sidoo kale faa'iidooyin badan u leeyahay xasuusta dhow iyo tan dheer. Haddii aad dhiiggaada si joogto ah u shaqaysiiso adigoo ciyaaraya noocyada kala duwan ee ciyaaraha, waxaa meesha ka bixi doona waxyaalihii kugu keenay xasuus xumada, waxaana yaraan doona ilowshaha badan. Qodobka saddexaad, miisaanka. Hoos u dhigida miisaanka jidhkaaga ayaa kaa caawin kara xasuustaada si wanaagsan u shaqeyso, iyadoo dhammaan tijaabooyin la sameeyay ay soo baxeen saameyn miisaanka uu qofku ku leeyahay xasuustiisa. Qodobka afaraad, ciyaarta Jarmanka maskaxda dhista. Waxaa jiro games loogu talagalay maskaxda lagaga shaqaysiiyo, kuwaas oo ku jira moobilyada qaarkood. Ciyaaraha waxaa ka mid ah gameska loo isticmaalo Puzzles, Sudoku, Crosswords. Gameskani maaha oo kaliya madadaalo, balse waxaa waqti yar oo kooban ku soo celi karaan xasuusta qofka. Qodobka shanaad, badso khudaarta cagaaran. Ku dadaal cunista khudaarta cagaaran. Cuntooyinka ugu wanaagsan ee maskaxda oo ka mid ah avokadada waxay hodan ku tahay fitamiin E iyo fitamiin C, ka hortagga khatarta qaadista cudurka xasuusta beelka. Qodobka lixaad, cun kalluun badan iyo digir. Kalluunku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka ugu fiican ee kor u qaada xasuusta dadka. Sidoo kale cuntooyinka xasuusta kor u qaada waxaa ka mid ah digirta. Haddaba waxaa la isku wada raacay inuu kalluunku horumariyo xasuusta maskaxda. Qodobka toddobaad, waqti badan seexo. Qofka oo seexan waayo hurdo ku filan waxay burburisaa xasuusta qofka iyo qaybo kale oo ka mid ah shaqooyinka maskaxda ugu muhiimsan. Waxaa la sheegay in qofkii hal habeen si fiican u seexan waaya inay qaadanayso inuu soo kabto ilaa uu 3 habeen si wanaagsan u seexdo. Haddaba haddii aad doonaysid inaad horumariso xasuustaada, waa in aad seexataa ugu yaraan 8 saacadood iyo wax ka badan oo aan laga carqaladeynin.